waxaan maanta dhamaystiri doonaa applicationkii oo ahaa calendar appki waan ku dhisnay studio maantana waxaan rajeynaa marka inaan soo gabagabeeyo hadduu ilaahay idmo insha allah. waxaan samayn doonaa ugu horeyn inaan appki aan ka dhigno ama app caadi aan ka dhigno si inaan kusoo shuban karno mobilkeena, inaan ka dhigno oo isticmaalno appgazer. mid labaad oo ah in aan dhigi karno play storeka ama appki pure inaan dhigi karno waa tii labaad. mid saddexaad oo ah in aan publish gareyno sida loo publish gareeyo inaan idin tuso online loo dhigo. haddana online-ka ma yaalo, marka waxaa waaye appka hadeer saan wuu ku dhisan yahay balse online-ka ma yaalo, online-ka lama dhigin. marka sidoo kaleete waxaan marka idin tusi doonaa sida aad ugu xiran lahayd firebase-ka. aad ugu xiran lahayd firebase-ka waa muhiim, ilaan waxaa kala soconaysaa firebase-ka sida dadka soo booqanayo, dadka isla hadeer waqti xaadirkan oo applicationka isticmaalayo, dadkii hore usoo booqday, dadka kaliintiga iyo in badan ayaa meesha ka ogaan doontaa applicationkaaga. dadka soo booqanayo iyo xogta ku saabsan inta badan waxaad ka ogaan kartaa gudaha firebase-ka ayaad ka ogaan kartaa. marka firebase-ka haddii oo inuu suuragal waayo waxaan ka duubi doonaa muuqaal kaleete aan ka duubi doonaa hadduu ilaahay idmo. marka aan usii galgalno mida kale aan idin ogeysiiyo, waxaan idin ogeysiinayaa in appkani hadda aan dhisayo waxaan soo dhisay ilaa dhowr app ayaan soo dhisay. marka waxaan leeyahay laba ciwaan ayaan Google AI ka leeyahay. marka AI Studio wuxuu ii ogolaaday inaan laba application si toos aan u publish gareeyo oo ii ogolaaday. marka laba application ka badan wuxuu i weydiinaa inaan qayb premium ah ama lacag aan ku shubto ama aan lacag bixiyo. sida hadeer aan idin tusayo waa kan marka aan publish dhaho wuxuu i weydiinaa waa kan qaybta no billing setup uu leeyahay setup gareyso step 1 step 2 ilaa step 3 weeyaan. marka haddii aan dhaho no billing setup haddii aan ku dhufto wuxuu leeyahay mastercard ku xiro, account ku sii xiro, lacagta bixi, waxaa noocaas camal oo weydiinaya. marka waxaan sameeyey Google AI aan horey u lahaa oo ii dhisnaa. Google AI-gaas waa ujeedaan waxaa ku jiro calendar app ayaa ku jiro. calendarkan waa kii ugu horreeyay aan dhisay. kii labaadna waa midka hadeer aan idin tusayay oo aan idinka cashir aan idinkaga dhigay, waa midka labaad. magaciisana waa almawaqit aa ku qoran. marka kan maadaama aan hadda oo diidayo appgazer inaan ka dhigi karin linki haddii aan ku dhufano ilaan linki marka publish laho linki ayaa kusoo baxayo. linkigaas ayaa laga doonaa marka inaad appgazer la tagtid. tusaale intaan idinka tusaya marka hadeer publish marka aan dhaho wuxuu ileeyahay marka okay publish marka aan dhaho waa kan sidaan ayuu soo qoraa marka hijir calendar oo ilaa marka waxaa ku qoran meesha available ayaa ku qoran hijir calendar. marka halkan inaan publish your app aan ka dhaho publish markaa dhaho kadib linki u siinaa. linkaas waxaan la aadi doonaa appgazerka ayaan la aadi doonaa. okay aan kasoo laaban marka dhankaan marka usoo noqono maadaama publish oo inoo diiday waxaan soo kicin doonaa appgazer ayaan soo kicin doonaa. okay Google AI marka waxaan si toos ugu furi doonaa Chrome-ka ayaan si toos ugu furi doonaa. waxaan leeyahay open in Chrome dhexdiisa igu fur ayaan leeyahay. marka waa kan waa ii soo furay Chrome-kii uu soo furay. marka waxaan dhihi doonaa marka appgazer ayaan dhihi doonaa app
okay waa kan oo inoo soo kacay applicationkii halkan marka URL-kan waxaan soo dhigaynaa hadda markaan isku dayno inaan share aan dhahno kadib aan copy soo dhahno application markaan keenno halkan aan ku dhufano wuu inuu diidaa marka ma soo saarayo waa kan uu diiday balse waxaan ku fiirinayaa marka midkaan aan soo publish gareeyay ayaan ku fiirinayaa okay copy aan soo dhaho kadib waxaan imaan doonaa applicationka kanaan ku fiirin doonaa marka okay wuu diida isigana marka waxaan ku fiirinaa qaybtan oo aan publish gareynay ayaan ku fiirin doonaa qaybta publishka ayda marka publish maadaama uu weli publish gareysnaan haddeer macnaha waxaan dhihi doonaa publish aan dhihi doonaa kadib si toos u tagaa online u tagaa marka waxaan dhihi doonaa marka publish your app ujeedaan wuxuu leeyahay marka publishing your app na waa la publish gareynaya ilaa uu ka dhamaado waan sugi doonaa okay waa publish galiyay halkan wuxuu kusoo qoray marka ready ayuu kusoo qoray marka linkiga waa kan marka linkiga waa kana app URL marka URL-kan ayaan soo qaadi doonaa copy inaan soo dheh waxaan si toos u tagi doonaa marka applicationka waxaan si toos u tagi doonaa marka qaybteeni applicationka aan si toos u tagi doonaa okay linkiga aan ka tirtirno linkiga aan kala macnaha markaan ku dhufano fiiri wuxuu samayn doonaa okay calendar appkii waa inoo soo saaray waa ujeedaan marka markii macnaha publish la dhaho online si toos loo dhigi kadib ayuu soo saarayaa si kale ma soo saara marka midkan waa midkii ugu horeeyay aan sameeyay calendarkan ka wuxuu leeyahay marka macnaha qayb wuxuu leeyahay android hadda android ku taagan yahay ujeedaan qaybna waa ISO waa iPhone mobilada iPhone ka loogu talagalay marka kan waa iPhone kan waa android marka labada application midka doonta ay soo degsi kartaa haddii aad Play Store dhigaysid waxa waa labada waa muhiim ayuu ku yahay macnaha android ahaan install u dhahdo sidoo kale inaad ISO install aad u dhahdo waxa inoo dhimo marka magac inoo u bixino magac hore u bixinay calendar hijri ah ku qoran okay calendar hijri maadaama uu ku qoran yahay halkan email waxaan gelin doonaa emailkeeni ayaan gelin doonaa ujeedaan waxaan dhihinaa marka next step okay wuxuu soo diiday magaca ayuu xoogaa macnaha wax ka soo diiday magaca okay hijri calendar hijri okay hijri calendar magaca kala bedinayna marka control X okay gadaalkeen control V de space okay ataan waxaa ka dhigtaa marka capital ka dhig marka capital ka dhig okay next step le marka waa hagaag okay appkii hadda waxaa marka macnaha waan samayn doonaa laakiin wuxuu nagu aadan yahay qaybta ISO oo
wuxuu u aadan yahay iPhone-ka. Marka Android-ka aan geeno ilaan Android ayaan hadda ku baroobeyn doonaa. Marka waxaa noo dhiman hadda inaan sameyno macnaha icon-ka ama loogada aan soo gelino, macnaha icon-ka aan soo gelino. Upload icon aan leenahay. Okay, icon-ka waa kan, icon-kan kusoo dhufo kadib click soo sii. Ujeedaan oo soo galay boqolkiiba 25 waa marka waxaan leenahay next step. Okay, boqolkiiba 50 ayuu marayaa marka. Meeshaan marka wuxuu ku leeyahay waxaad macnaha ku sii xiran kartaa WhatsApp-ka, Facebook-ka iyo go'aam social media ku xiran kartaa. Marka aniga hadda macnaha diyaar ma uni haddii ay rabtana muuqaal kale kasoo sameyn doonaa. Marka waxaan leenahay next step. Okay, next step marka dhahno wuxuu inoo keenay boqolkiiba 75. yaa marka waxaan marka waa download gareysan kartaa uu yiri waa download gareysan kartaa qaybta download waa kan. Marka waxaan sameyn doonaa download ayaan sameyn doonaa download. Okay, waxaan dhihi doonaa download. Okay, وحقيقنا marka macnaha waa xaqiijinaa in macnaha iska diiwaan gelisay in kale tahay oo xaqiijinaa. Marka waxaan leenahay continue. waxaan leenahay continue marka dhahno isla markii waxaan dhufanaynaa gmail keeni. wow maxaa sameeyay marka your apps oo meeshaan macnaha appkaaga. Okay, waxaa ku dhufanaa marka macnaha meeshaan oo your apps ay ku qoran tahay aan ku dhufanaa marka application-ka waa kana calendar oo ujeedaan calendar ejiri calendar ay ku qoran. meeshaan waxaad ka dhigi kartaa marka download si aad macnaha mobilkaaga iyo aad ugu dejisto. Okay, marka waxaan isku dayaa marka inaan ku dejiyo mobilkayga ayaan isku dayaa inaan ku sii dejiyo. waxaan sameynaa marka waxaan leeyahay download. Okay, wareen waxaa jirto waddooyin qaar macnaha oo mobilka macnaha lagu degsado ay jirto. Marka waddada koowaad waxaa marka macnaha inaad aad dhahdo macnaha download appka aad dhahdo computerka aad ku dejiso. kadib computerka aad ku dejiso mobilka aad u geyso. midda labaad oo ah inaad download app macnaha Play Store ahaan aad ku dejiso ama inaad u dejiso kan macnaha download appkan waa Play Store ahaan markuu Android uu yahay, kanna waa markuu uu yahay iPhone. marka markaad dejisid si toos macnaha waxaa Play Store ka dhigi kartaa asigoo Android ah. marka Android ahaan markaad u publish gareysid hadhow macnaha dadkan oo isticmaalo mobilkan iPhone-ka ma degsan karaan. marka ayakana loogu talagalay download ISO marka ku dhufato ayana waxaa waaye si toos Play Store-ka u dhigaysaa. marka meesha ayay ka degsan karaan, waxay ka degsan karaan Play Store-ka. marka Android-ka kan ay degsan karaan iPhone-kan kan ayay degsan karaan. Okay, hoos u soco marka qaybtan marka waxaa waa marka inaad scan ka qaado mobilka oo qaado kadib macnaha aad mobilka ku dejiso. mid kale inaad download QR code-ka aad dhahdo mobilka macnaha ku share gareyso mobilka aad ku sii dejiso ama inaad dhahdo copy aad dhahdo oo kadib macnaha mobilka aad share gareyso WhatsApp-ka iyo meelahaas ku share gareen ama kan aad share dhigi kartaa. marka si toos waxaad ugu share gareyn kartaa WhatsApp-kaaga, Facebook-kaaga iyo WhatsApp-kaaga macnaha kaaga fudud. Okay, anaga hadda waxaan isticmaalaynaa marka waxaan leenahay download appki aan leenahay download marka dhahno wuxuu si toos noogu dejinaa marka computerka ayuu noogu dejinaa si toos ugu jidaa file application install your Android app marka install your Android app. Okay, waa kan marka oo inoo socdaa marka one download in progress asaga degaa marka ejiri calendar oo degaa.
Okay, applicationka waa uu soo degay marka waa kan applicationkii Hijir Calendar abki ahaan oo haysanaa marka kana waxaa ku shubi doonaa mobileka marka computer iyo mobile si waxa loogu shubo play lagu sheegi maayo qofkii minaha u baahan marka computerka iyo mobileka waxaa ka dhexeeya inaad micnaha isku share gareyso oo WhatsApp iyo waxa uu dirto ama inaad USB u isticmaasho adiga sida ku roon ana USB ma haysto marka waxaan doonayaa marka inaan WhatsApp ku share gareeyo aan doonaa marka WhatsApp aan ku share gareynaa okay waxaan dhahayaa marka qaybtan iyo WhatsApp-kan aad waxaa tagay mobileka Arab inaan u diro ama WhatsApp-ka Arab inaan u diro aan ku dhufanayaa markaan ku dhufto kadib waxaan tagaa marka calaamad balaskaan tagaa marka kadib document-ka ka dooranaa waxaan toos u tagaa marka download-ka qaybta oo application aan kusoo download gareeyay kiya kusoo dhufanaa waxaan leeyahay open si toos wuxuu soo dirayaa marka WhatsApp-ka okay waa kan okay send okay waxaan aadi doonaa dhanka iyo mobileka ilan applicationka meesha ayuu ka degi doonaa okay waxaan joognaa marka dhanka iyo WhatsApp-ka marka waa kana applicationkii waxaan leenahay download aan leenahay marka wuu soo degayaa marka download ujeedaan inuu soo degayo okay wuu soo degay waxaan sameynaynaa marka kusii dhufanaynaa waxaan leenahay marka open file okay install scan aan leenahay marka okay kadib waxaan leenahay install okay appka wuu soo degay appkii waa soo install gareynay marka scan yar uu marsiinaa marka scan-kan waa mobileka micnaha application cusub markii la soo saaro ama micnaha wuxuu leeyahay scan maray ilaan wuu ka jegareynaa applicationka micnaha inuu fail leeyahay in kaleeto marka waxaan leenahay ignore okay ande marka banaanka aad banaanka aan kasoo fiirino marka appkii banaanka aan kasoo fiirino applicationka aan sameynay application play calendar oh waa kana Hijir Calendar waa kan ujeedaan Hijir Calendar marka ku dhufano marka open ayaan dhahaynaa Hijir Calendar okay hello wow masha Allah waa kan waa sameynay applicationkii calendarka qaybta calendarka waa kan ujeedaan qaybtan calendar waa qaybtan waa qaybtii aadaanka iyo wixii qaybtan waa qaybtii micnaha kaarta okay qaybtan waa settingii oo ujeedaan darki wuxuu leeyahay light darki markaa dhaano darki markaa dhaano waxaa micnaha wixii dhan wuxuu ka dhigay mugdi oo ka dhigay waa kana mugdiisaan ku isticmaalaynaa ujeedaan haddii aan ka bedelo micnaha luqadda carabiga haddii aan ka dhigo waa kan luqadda waxaa waaye luqadda carabiga ayuu markaas micnaha ku shaqeynayaa okay haddii aan Soomaali ka dhigo waa kan luqadda Soomaaliga ayuu micnaha ku shaqeynayaa ujeedaan luqadda Soomaaliga waa kana 9.48 waa ujeedaan marka appkii caadi ah aan hadda micnaha sameynay appkii caadi aan hadda sameynay ujeedaan marka appkan waxaan dhigi doonaa appka pure ayaan dhigi doonaa Play Store-kan waan dhigi doonaa
kadib waxaan u samayn doonaa Firebase aan u samayn doonaa hadduu ilaahay insha Allah. Okay, applicationkii waa kan waa soo odlaanay waa soo dhammayn marka waxaan dhigi doonaa marka qaybtan iyo appka Pure aan dhigi doonaa marka appka Pure saan ku dhigaynaa marka appka Pure kan mobile ku jiro iska daa kasoo tag mid kale kan linkigan naga xir sameynayna marka qaybtan sameynaa naga xir. Okay, waxaan markaan si toos u geynaynaa marka waxaan si toos u geynaynaa marka appka Pure si toos u geynaynaa Play Store ka wuxuu nooga baahan yahay inaan iska diiwaan gelino marka waxaan halka rabaa $25 marka muuqaal kale ayaan kasoo samayn doonaa hadda waxaan tusaa sida aad ku geyn lahayd appka Pure aad ku geyn lahayd marka appka Pure waxaa jiro meel oo loo appki Pure console loo aan iska diiwaan gelino marka aan hore iskaga diiwaan geliyay marka waxaan in tusaa marka sida la iskaga diiwaan geliyo marka aan linkiga hore aan ku isticmaalaya new tab